cid allaale iyo ciddii ay ku caddaatay inay wax xadgudub ah ku sameeyeen xeerarkana qaarkoodna natiijadii waa laga baabi'iyey qaarkoodna maadadaas natiijadoodii waa laga baabi'iyey laakiin sida aad ku arki doontaan war-saxaafadeedka waa dad aada iyo aada u tiro yar inta uu la egyahay dadaalka ay bixiyeen waalid iyo macallinka Soomaaliyeed natiijadu aada iyo aada ayay u wanaagsan tahay marka waalidka iyo macallinka Soomaaliyeed labadaba loo sacbiyo imtixaanku ma aha meel isku ciqaabo laakiin waa qiimeyn waxa la qiimeynaya kaliya ma aha ardayga ee waxa la qiimeynaya oo qiimeynta ku jira macallinka waxaa ku jira maamulka waxaa ku jira waalidka waxaa ku jira dowladda oo aynu inaga matalayno waxa uu ka mid yahay howlaha qaranka howlaha ugu muhiimsan amnigiisana uu ugu muhiimsan yahay inay natiijo fiican ka soo baxdana ay ugu muhiimsan tahay laakiin qofka intaas oo ugu sii muhiimsan waa ardayga oo isaga laga rabo inuu muujiyo in waalidkii uu fiicnaa macallinkiisa uu fiicnaa dugsigiisa uu fiicnaa maamulihiisa uu fiicnaa dalkiisa uu fiicnaa dowladdiisa ay fiicnayd wasiirkiisa uu fiicnaa haddii ardayda xumaadaan macnaha wasiirkana ma fiicnaanayo hawsha imtixaanka ugu yaraan waxa ay socotay 8 bilood oo hawl joogto ah oo habeen iyo maalinba loo fadhiyo oo kumanaan qof ay ka qayb galeen in ka badan 5,000 oo qof ayaa hawshaas u istaagan oo ka qayb gasha oo qofba meel uu kaga soo hagaago dadkaas waxa aan leeyahay waxa aad ka mid tihiin dadka samaynayo taariikhda qarankeena iyo dalkeena Soomaaliyeed dadka intaa u istaagay roobka u taagnaa safarada u maray khatarta u galay imtixaanka waxa uu ka koobnaa 540,000 oo warqadood warqad kan kama wado 540,000 oo warqad imtixaan waay oo kuwa qaar ay ka kooban yihiin dhowr page oo 5 page iyo 10 page ay dhanta markii warqad loo tiriyo waa dhowr milyan oo warqadood dhowrkaas milyan oo warqadood hal ka mid ah oo inta la xaday ama baxday meel media lagu faafiyey ama dad ay qaateen ma jirto taa waxay ku dhacday dadaalka iyo xilkasnimada iyo tiknoolajiyada ay adeegsadeen dadka imtixaanka ka shaqeynaya waxaase ka weyn wacyiga ardayda iyo macallimiinta iyo maamulayaasha iyo waalidka oo kordhay oo ka wanaagsan siduu sanadihii hore ahaan jiray cid allaale iyo ciddii ay ku caddaatay inay wax xadgudub ah ku sameeyeen xeerarkana qaarkoodna natiijadii waa laga baabi'iyey qaarkoodna maadadaas natiijadoodii waa laga baabi'iyey laakiin sida aad ku arki doontaan war-saxaafadeedka waa dad aada iyo aada u tiro yar marka loo fiiriyo ummadda intaa la eg ee halkaa iskugu timaado marka hawsha intaa la eg ee dadkeenna aada og tihiin duruufaha uu ku jiro iyo mararka qaar xataa daciifnimada ee dadka qaar ku jirtoo laga yaabo inuu is yidhaahdo qofkan wax u raadi ama qofkan wax la gal hal warqad oo ka mid ah hal page oo ka mid ah warqadahaas haddii ay gacanta ka baxdo qarankeenna waxaa soo gaaraya khasaare aan la soo koobi karin khasaaro sumcadeed khasaaro waqti iyo khasaaro maaliyadeed marka runtii aada iyo aada ayaan ugu mahadcelinayaa shaqadii intaa la ekayd ee lasoo qabtay mahadcelinteedu way ballaaran tahay waxaana ka bilaabayaa waalidka Soomaaliyeed aabbayaashana waxaan rabaa inay abaal mariyaan hooyooyinka ilmahooda ay darajada fiican ay keenaan runtii hay-adaha dowladda oo dhan haba ugu horeysa wasaaradda waxbarashada sanadkan wuxuu ahaa sanadkii aan aniga ugu yaraa ka warqabka xaaladda imtixaanka waxaan aada si gaar ugu mahadcelinayaa wasiiru dowlaha
wasaaradda waxbarashada xildhibaan nuura mustafa mukhtaar oo runtii u istaagtay inay hogaamiso hawsha imtixaanka inay hogaamiso runtii hay'adaha dowladda oo dhanna waa ay ka wada shaqeeyeen wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada daladaha waxbarashada maamulayaasha dugsiyada cid kastaba ay ka shaqeysa laakiin kaalinta lama iloobaanka ah waxaa iska lahaa geesiyaasha Soomaaliyeed ee ciidanka booliska Soomaaliyeed oo kaliya shaqadooda aysan ahayn inay ardayda ilaaliyaan laakiin shaqadooda ay ahayd inay wax kasta oo suuragal ardayda u fududeeyaan xilli waxaa lagu jiray xagaaye meelaha qaar xagaaye ay ka da'ayso baabuurtooday ku soo qaadayeen dhabarkooday ku soo qaadayeen ardayda waxay dhaafinayeen meel kasta oo khatar ku ah ama dibudhac uu uga imaan karo ciidanka booliska Soomaaliyeed waa saaxiibka shacabka Soomaaliyeed waa saaxiibka waxbarashada Soomaaliyeed waa saaxiibka wasaaradda waxbarashada gudaha iyo tacliinta sare ciidanka booliska Soomaaliyeed ha loo sacbiyo wasaaradda caafimaadka gobolka Banaadir wax kasta oo dhan oo suuragal ah ayay dad badan oo wanaagsan ay noo qabteen laakiin waxaa jira kuwa aan la arkaynin waxaa kamid ah canshuur bixiyaasha Soomaaliyeed